inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alla naxariistii jannaha ka waraabiya hogaankii tababarada ciidamada xeebaha Soomaaliland Cabdiwali Cabdilaahi Warfa oo ku geeriyooday shil gaari ayaa la keenay magaalada Burco Saaka waxaana meydka marxuumka lagaga hortagay kaantaroolka galbeed ee magaalada Burco mas'uuliyiin xildhibaano iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka Togdheer intaasi kadib taliyaha ayaa waxa salaadii casar lagaga tukaday masjidka Ar-Raxma ee magaalada Burco marxuumka ayaa intaasi kadib ay u sii galbiyeen gaadiid iyo dadweyne tiro badan xabaalaha magaalada Burco barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad taliyaha guud ee ciidamada xeebaha Soomaaliland saraakiisha kala duwan ee ciidamada gobolka Togdheer iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan ayaa marxuumka Alle uga baryay inuu jannadii Firdawsa ka waraabiyo ehelkii qaraabadii shacabka Soomaaliland iyo ciidamada xeebaha Soomaaliland ee ka baxay sarkaalku samiriye iimaan saadiqa ka waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan kullu nafsin daa'iqatul mawt qof waliba waa dhimanaya waxa la yiri malakumowdka waxa la yiri orodoo ka soo qaad nafta markaasuu yiri maxaa loo bixinayaa markaas la yiri dadka u magac bixinaya qaad waxay oranayaan mid kaliya fariistay mid waxay oranayaan baawur baa jeeray mid xabad baa ku dhacday marka magacii baa u baxay maanta ugu baxay inuu shilka noqdo waa geeri naxdin laba runtii sarkaalkayguna sarkaal aad u qiimo badan buu ahaa labadoodaba waxaan ka tacsiyadeynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ciidamada ilaalada xeebaha ayaa ka tacsiyadeynayaa sarkaalka iyo ninka shicibka la dhintay eheladoodii iyo qaraabadoodii dhammaan iyo wixii intii garanaysaba naf kasta ilaahay ayaa inoo ballan qaaday inoona sheegay inay naf kasta ay dhadhamin doonto geerida waana si lagu kala horeynayaa waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ay ka geeriyoodeen korneyl Cabdiwali Cabdilaahi Warfa iyo Axmed Casir waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa marxuumiinta korneyl Cabdiwali iyo Axmed Casir oo shil gaari ku geeriyooday maanta xabaashoodii aan joogno marka hore ilaahay waxaan uga baryayaa marxuumiinta inuu jannadii Firdawsa ka waraabiyo qabriga u waasiciyo su'aashana uu kula siiyo aaskii ilaahay u naxariisto subhanahu wa ta'ala korneyl Cabdiwali oo shil baabuur ku dhintay si degdega waqtiga ilaahay ugu yimi iyo waliba Axmed Casir oo la socday labadoodaba ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannatul firdawsa ala oo ka waraabiyo geeridu waa xaq geerida ku timi qof waliba uu dhadhaminaya halkaasaynu ku wada qorannahay qof walba waxaanu markaa uga baryaynaa ilaahay ducada inooga baahan yahay maanta in mataqaana ilaahay qowlka saabit ka haleelsiiyo in mataqaana ilaahay u naxariisto Cabdilaahi Warfaar sarkaalkii ciidanka badda bashaan la dhexe iyo marxuumkii la socday waxaan ka tacsiyadeynayaa labada marxuumba ehelada iyo qaraabada iyo qoysaskii ay ka baxeen caruurahoodii hooyooyinkood iyo xaasaskii ayaan si gaar uga tacsiyadeynayaa ay u baahan yihiin iyagu horta waxa weeye in loo tacsiyeeyo loo duceeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannadii geeyo dambigooda ilaahay dhaafo waxa aan halkan ka tacsiyadeynayaa qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada qaranka ilaalada xeebaha militariga wax kasta oo ilaalada dalka qaranka ah waxaan kaloo ka tacsideynayaa bahweyntii asxaabtiisii uu la dhashay ee lagu dhaqmay ee uu la cunay oo la cabay waxaan kaloo ka tacsideynayaa intii ka hawlgashay hawlihiisii iyo qarankii iyo dhibtii nagu dhacday shilkii ka soo gaaray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Cabdilaahi Xudayfi Ariel TV Burco